Doonistu waa midda sababaysa in aad tallaabada ugu horreysa u qaadid dhinaca guusha, balse go'aan adayga ayaa ah midka kugu sugaya in aad tallaabada sii wadid ilaa dhammaadka. Hadalka ma aha ee ficilada ayaa muujiya go'aan adkaanta. Eber ayaan wax ka soo bilaabay, balse ka hor intii aanan milyaneerka noqon, waxa aan go'aansaday laba arrin. Midda koowaad waa in aan milyaneer noqdo, halka midda labaadna ay tahay in aan isku dayo in aan milyaneer noqdo. Waxa sidan yidhi hantila Maraykan ah. Haddii uu qofku leeyahay go'aan adayg iyo doonis xoogan, waxa hubaal ah kaalin kasta oo ay noloshu leedahay in uu ka soo durdurin karo. Waxa waajib ah in aad naftaada ku kalsoonaatid. Haddii aad ku kalsoonaadin weydid, cidee ayaa adiga ku kalsoonaanaysa. Kalsoonida naftu waa aasaaska geesinimada. Qofka naftiisa ku kalsoon waxa uu leeyahay qosol gaar u ah, xataa dhaqdhaqaaqiisa oo dhami waa ay ka duwan yihiin kuwa dadka kale. Qofka naftiisa ku kalsooni uma baahna ammaanta dadka, balse kan ammaanta dadka raadiya hubaashi dadka waa uu ku agduloobaa. Qofka tallaabadiisa ku kalsooni waxa uu u socdaa sida boqorada oo kale. Markasta oo aad naftaada ka fikirtaa waa markasta oo aad wax kasta ka awood badan tahay. Kol kasta in aad naftaada ka warantaa waxa ay caddayn u tahay in aadan isku kalsoonayn. Haddii aad naftaada ka shakidid, waxa aad dhab ahaantii ku taagan tahay dhul gariiraya. Qofka isku kalsoon waxa uu yidhaahdaa, arrintu waxa ay u muuqataa mid adag, balse waa suurtagal. Halka uu ka yidhaahdo ka aan isku kalsoonina, arrintu waa suurtagal, balse waxa ay u muuqataa mid adag. Geesinimadu waa astaanta ugu wacan ee uu qofku sifaysnaan karo, maxaa yeelay gobonimada inteeda kale oo dhan iyada ayaa sal u ah. Noloshu waxa ay u hogataa oo ay daba gashaa qofka geesiga ah. Geesinimadu haddii aanay hadaf lahayn, wax micno ah ma laha. Waana kii Awaan Cabdiqays yidhi, dhiiranaantu geesiga marbay dhagar ku noqotaa. Geesigu kama dhiirana qofka caadiga ah, keliya waxa uu dheeryahay 5 daqiiqo oo uu dabadii adkaysto. Geesinimadu waa maaraynta cabsida ee ma aha in ay cabsidu marnaba maqan tahay. Xataa kuwa geesinimada halbeega u ah waxa hubaal ah in ay kol kasta cabsidu qalbigooda ku jirtay.